بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا لها كلمة داني أي قاري دونتو وحين كسلامنا سلامة إسلامك وحن لنا هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب ما أنت وحرمنا إن هذا التحناءها ومركه رب لوني لكن إنان لما يستيرين arrimo cusubna ay soo biireen inaan waxoogaa aan sii wadno arrintaasi waa arrintii ku taabsanayd masjidka Qubo ee Amsterdam runtii fitnadaasi markay bilaabantay anigu waan ka soomay arrintaa afkayga aan ka qabsaday mowqifkaygana waan cadeeyay sidaa darteed in muddo ah arrintaasi kamaan hadlin hase yeeshee maanta waxaa igu xambaaray inaan kalimadani soo socota insha Allah ilaahay wixii naga waafajiyo iyo to ka dambeyn doonta to saddexaad oo ka dambeysana insha Allah waa jiri doonta inaan kalimadan soo jeediyo maanta waxa igu xambaaray waxyaalahan soo socda kow horta waxa ii imatay su'aalo badan oo dadku igu weydiinayaan sheekhow dadkii masaajidka joogay hadallo badan bay meelaha ka faafinayaan dhaaro badan bay sameynayaan guryaha dadku ku garaacayaan waxyaalo badan baa dadka ay ku wareereen adiga dhinacaagii maxaad u hadli laadahay taas waxay markaasi aan door biday maadaama hadallada la faafinayay ay huwan yihiin been abuuradayaal iyo talbiisyaal waxyaalo la isku dheexayo oo dadka xaqi lagaga maldahayo iyo beenayaal si cad oo qaawan loogu hadlaayo lagu daray markaasi in dadka lala xidhiidho guryahooda loogu tago qofba qofkii aw ka dambeeyo aw garan kara loo dirayo la adeegsanayo qaabyaal cajiiba la isku dayayo qof kasta oo arrinta masaajidka inuu ka hadlo iyo sida uu socdaan ka hadlo in la aamusiyo sida la aamusiyay wada ka saloomaro hanjabaad in la yiraahdo waa dambaabeysa siyaalo badan oo markaas dadku ay ka dheregsan yihiin sida muuqataana ay tahay arrintaasi markay dhacday baa waxaan u arkay inay munaasib ku tahay inaan meeshaasi kelimo ka idhaaho waxaanan u arkaa noona muuqata dadka qof alle cidii wax ka saysana u muuqata sababta u weyn ee dadka arrintaasi faafinayay inay dadka argagax ka ridaan oo ay la dagaalamaan oo ay cabsi ku ridaan inay ula muuqato ay u sababtahay arrintaasi cidii ay u arkaan khilaafkaas iyo fitnada meesha ka dhacday sida aragtidooda ka duwan cid ka u arkaan inay markaasi ay waxyaalahaasi ay ku bafiyaan cid aragtidooda aragta arrinta dhacday ee arrin guud ah iyo qaabka loo daweynayo iyada aragtidooda cidii ka duwan si ka duwan cidii u aragtay inay qaabkaasi markaa ula dhaqmayaan in arrintan markaa in dadka maaragtay maskaxdooda la xado runtii waa laga fiican yahay waxa kale oo jira khaasatan arrintan iyadii waa arrin la og yahay cumqigeeda ama gunteeda iyo dhererkeedu intuu la eg yahay runtii haddii loo dhiibi lahaa dadka wax fura waxna xidha ahlul alxal ama alxil أهل الحل والعقد هذه لو ديبي لها أي نقول له إن إسكوبا أركتو ذي كل الدوان لهنا هايين محادثة لين سهدي أرنتا لو ديبو ضد أرنتا سي أنا أهل أهين أو يو ضن كلا يو جد كلا يودح موقته أرنتي مركزي ويسيها الله بيسا وأنا سيدا موقته وحامر رمضان تأ أو dadka intii aqli la arinta la socotaana ay ka marag yihiin
xitaa gaaladii ay warka u sheegeen oo waraaqaha u gudbiyeen u durtireen ay marag ka tahay inay arrintaasi ku bilaabeen arrin been abuurad ah oo taqriiriyaal iyo shirar aan dhicin inay sameeyeen welina tii ku sii socdaan arrimahaasoo arrimo ahaa mufamaraka yacni arrimo la isku dhedhejiyo oo la isku dheehdheexay ahaa la isku dardaray oona sax ahayn iyo qaar hadday dhaceenba sidii ay u dhaceen laga duway haddii walaalahaasi ku gaabsan lahaayeen wixii dhacay sidii uu dhacay inuu uga hadlaan oy laazimi lahaayeen aragtidoodii siday xal u arkaan ay sheegi lahaayeen arrintu aad bay u fududaan lahayd runtii in muddo ah waa la warwareegayay dad badani ana waa la weydiiyey sad xal u aragtaa waan sheegay intaas oo guddi oon 9 ka tiriyey ayaa ku noqotay iyagii war maxaad xal u aragtaan baa la weydiiyey dadkii ay wada joogaan maanta jawaabtu waxay noqotay in la helin waxay xal u arkayaan bas kala haatay annaga hana la daayo annaga meesha la kala noqonayna arrintaasi markaa waxay noqotay inay ku xambaarto walaalahay ama ardadaydii ama caruurtaydaba ahaan jiray inay isku biiriyaan laba shay oo foolxun nin baa waxaa la yidhi dukaan buu yimitay timir buu nin weydiistay iyo timiriga gata markaasuu wuxuu ka gaday timirta tii ugu xunayd markaasuu haddana miisaankiina waa ku xaday markuu arkay ninkii timirtiina ay timir liidata ay tahay miisaankiina uu ku xaday ayuu yidhi nin yahuni axashafan wa suu'a kiila warma waxaad iskugu kay dartay timir xun iyo miisaankii ood igu xaday iyo beegistii ood igu xaday marka waxyaala noocaas ahoo aanan isqabanaynin ayay markaasi isku dartareen saa darteed waxaan u arkay dad xumaani ka badatay oona waxba qaadanaynin markay yihiin in lala hadlo oo loo jawaababa in laga fiican yahay saasaan inta badan uga aamusnaa waxaanse la yaaba oon aad runtii ula yaabay weli haddaana la yaabanahay dad badan oo na yaqaana oo masaajidkana la soo joogi jiray qayb nagala soo qaatay holan iyo meel kalena jooga shakhsiyan aniga ii yaqaana siiradaydii iyo dhaqankaygu wuxuu yahay waxyaalaha wiilasha ay sheegayaan inaanay sahayn og oo run tahay laakiin haddana ku dhiiran waayey inay yidhaahaan allahuma hada munkar war waxaan joojiyey wiilashayna yarow qaar badan oo markii hore dhiirsanaa daaqaday ka baxeen qof intoo loogu diray bay halkaa ka baxeen gaar ahaan dumar badan oo maanta markaysaa wanaag aan ka filayay niman odayii markay dhaadhaarteen oo yidhaheen waxbaan haynaa oon soo saaraynaa wixiina waan leenahay waan sugaynaa weli mayna soo saarinay waa waxay noqotoon sheekadii reeran doonayay roobigu eri waa arrinta markaasi aan aad ula yaabanahay anigu taasaan markaa uga gaabsaday oon qaatay sidii ninkii gabayaga uu yidhi qofka ay dhaleecaynaya wax iga sheegaya waan iska soo agmaraa waxaan idhaahaa aniga iima jeedo saasaan ku socday laakiin arrimahan markaan arkay waxaan u arkay wallahi inay ku habboontahay in laga aamusin oo fiidiyooyinkii ay duubeen youtubeyadii ay duubeen iyo odayaalkii ka horreeyey u xaglinaya waxay duubeenba inaan silsilad uga jawaabay istaba socota iyaan goostay taasaan maanta hadalkan kelimadaani inaan hordhac uga dhigo ayaan markaasi ku talagalay youtube-koodii ugu dambeeyey haddaan wax ka soo qaato waxay ku andacoodeen sheekhu maxkamad buu masaajidka la aaday oo la tiigsaday waxaan ognahay inaan masaajidka maxkamad la geynin waanan ka hadli doonaa maxkamaddu inay labadaa nin ku socota laakiin waxaa arrintii oo dhanba sii haleeyey oon dadku la socon iminkaan ogaanay inay iyagu maxkamaddaba iiga horreeyeen
oo haddana loo soo diray maxkamadaasi inay naga qarsoonayd kaafay kaagii laga adkaaday inay xitaa mar labaad ay ka bixiyeen ay u direen ay ka qaateen bisfaar ay ka qaateen oo haddana loo soo diray anigana waxay leeyihiin maxkamad masaajidka mana geyn masaajidka waana sheegi doonaa cidda maanta markii la dacweeyay sabab loo dacweeyay xalaqada soo socdaan ku soo sheegitaana waxay yiraahdeen wuxuu sheekhu ku dhaartay muxaadarada uu ku qabtay jaaliyada inay nimankaasi wax maal oo hoy haleysteen aysan jirin maxkamadana waxa ku qoran inay wax sina dhaafiyeen hadalkaasi waa hadal iska ormariyo waan saari kari weynay yiraahdeen runtuna waxay tahay in la wax sala dhaafiyo way jirtaa laakiin aan wax ku tuhumin oo iyagu iska aaminay waa halkeeda laakiin hadda waxay qarinayaan oo la isdaafiyay kadib wixii khilaafkan dhacay sida lacagta masaajidka u isticmaaleen waxyaalahaas waxyaalaha inaga daboolan qaarna daliil u hayno soona bixi doona waxay kale ku andacoodeen inuu sheekhu maxkamadda ka dalbaday lacag 50,000 ah oo miisaaniyada masaajidka barkeed noqonaysa inuu ka codsaday arrintaasina arrin jirta maaha ee maxkamaddu waa waxay sheegto waa wax iska qaanuuni qofku hadduu qaladada sameeyo laakiin wadaadku inuu qaadanayay in kale taas oo mashahad umada qaadanaya war kale oo isaga markaa la isweydiinaynin waxaase war cusub ah inaan looyarkoodii u tegay looyarkayga aw yidhi wadaadku halkaa ha ka baxo lacag baan siinaynaaye taa iyaga markaa wata ee mid anigu aan watay ma aha waxay dadka ugu hanjabayaan masaajidkiibaa maxkamad loo wadaay oo gaalo loo dhiibayaa bifundi fuudar waxa la yidhaahaa loo dhiibayaa dad badan baa arrintaa ka diday arrintuna caynkaas ma aha sida aan sheegi doona harana u sheegay arrintu waxa weeye kala haatay inay tahay haddii ummadda laga waayo dad haddii bay maxkamaddu xukunto meesha nimanka in laga qaado dad waa inay jaaliyadu diyaarsadaan meesha si haya inta laga heshiinayo hadalka meesha ku qoran waa sidaas haddii se la waayo qaanuunka iyo maxkamaddu waxay qasab ka dhigaysaa inay cid soo doorato intaa markaa way ka gooyeen xagga oroo weynu lilmusalliina oo kala haatay ku gaabsadeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata ayay ku gaabdahay tukanina wa antum sukaara xataa taclamu ma taquuluuna way gooyeen waxay kaloo sheegteen masaajidka dad aan ehelu ahayn oo cadow ku ah ayaa u soo socda marka iyaga ehela ayaa isbidayaan waxay sheegteen khilaafku inuu qadiim yahay oo shaqada ku saabsan yahay wadaadku markuu go'aanadii odayaalka ay soo jeediyeen oo cajabin waayay inuu maxkamad masaajidka la aaday arrintuna caynkaas maaha iyagu waxay isku arkaan inay masaajidka u qallamaan dadkada yihiin xaaladoodii iyo inay maalin kastaba qof marookaana ka daba dhacayaan waa la ogyahay xaaladu halkay taagan tahay khilaafkuna wax jiri jiray ma aha wax la jiri jiray oo la taaban jiray hadduu shay si ay dadka masaajidka ka maraga ha keenaan ee markii hore arrintu saasay kaga socon jirtay arrinta ay ka meermeerayeen mashruuca masaajidka markaan ogaaday qaabkay u wadaan war sidan ma aha ayay arrintu markaasi ay warkooda cadaysteen marka arrimahaas iyo kuwa lamida oon hadda soo koobi karin ayaa ugu wacan inaan kelimada maanta soo jeediyo hase yeeshee kelimadaasi intaan soo jeedin aan kaga jawaabayo qaabka ay wax u wadan ay ku andacoonayaan iyo beenaha la isku dardaraya dadka maskaxdooda lagu xadaayo waxaan rabaa inaan dadka xasuusiyo iyagana xasuusiyo wadakir fa ina dhikraa tanfacu lmu'miniin xasuusintu qof iimaan leh wuxuu tartaay kaan iimaan lahayn ama iimaankiisa oo meel kale looga yeedhayo meel u caddahay inta kale way ka midowdaa qodobo oo sharcigu ka dejiyey khilaafba hadduu yimaado qaabka loo xalinayo ee loo marayo sharci ahaan iyo waxyaalaha ayna bannaanayn in loo maro ayaan rabaa in wax ka taabto qodobka koowaad diinteennu meel weyn bay saartay aada u fog inaa qof lagu been abuurto ama cadad kasta loo qaado in lagu been abuurto diintu meel weyn bay saartay
إلهي وحري سبحانه وتعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون بين وحا سميو كلهاتي كو آيات كإله الرميسنين إيجو كلهاتي أمبا بين اليالنا والأوجيه حادثة الإفك أو حاسكي النبي عائشة ومن أطهر النساء زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة تيا أوجج علىها دبتيدا أو كل انتهاها قدوفتيدا وحي علوشي سقال أود ميساها أبو بكر يرير كان نظيفته أو قفك أمدا أوجو فضل بدن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمدا أها وحي لغا الشيء إلهي وحي الشيء صفحات كاملة وقرآنك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم والذي تولى كبره كي أرنتها سميمان اسم كإسقاله وله عذاب عظيم آيات داي تمنك دور كآيات صفحة دارن إلى ذلك من وحول مركز مقشين مية نفتينا كورقا قاطان عرب كي نوحد كشيكتين عذاب وين بايدن كل علىها هدون إلى الدنيا إن يدين حريسن مية عضين كانتان هداد عضين كيني ويدان كوا كيني واي وابين عليال إلهي وحول آياتها دمات كودا يعظكم الله أن تعودوا لمثله إن كنتم مؤمنين إلهي وحو إذن كوانين أو إذن كدقيا تاسو كلا كل غطان هداد مؤمنين تهين مركا آياتها سي يأفكي هيركا أو قرآن كجاري وهاد أكتهين قفك إن مركا لغو بيان أبورتو وها كمدا آياتها إلهي قرآن كوحو كله هاي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا كوا ددك مؤمنين تي مؤمنات كدباياي دنب اي جيستين لانتود فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا وحي حنبارين حد قدب بهتان وبين ابورد اي دنب عد اوجد الهي وحده سبحانه وتعالى ومن يكسب خطيئة او اثما نك الدنب فوله سميه كسبده خطيئة يقف أما دنب السمعية ثم يرمي به بريئا قف أرنتا عن شقة كلهين قورت أسرة وكجنا وكطورة فقد احتمل بهتانا وإثم مبينا قف كاسي وحو سمي دنب وين بكر كورتي بهتانكم محوية سيد النبي كوير عليه الصلاة والسلام حد التقانين بوير حنت ما حد التقانين نبي ويدين عليه الصلاة والسلام وحو حنت وإن الولالك وحونا كرر ليها إن كذا شيء كفافيسو مركزنا يا رسول الله هدي وحاسي أو عيب تاليه بالكورن وحيل تاسي وحو وحنبور حدي لكن وحونا لهنا دات صارته فقد بهته واتكو بين أبورته وبكسي حق جرتانا بين أبورة تكون النار بوكحياس حديث صحيح كويا الحديث ابن مسعود وحكمدها وإياكم الكذبة واربين إيا إذنكو يعني كالتكيا فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار بينتو فجور كي قفك جيسا فاجر نبي أكحيسا بين كاليسي أبورتا قفك مرة ضوب بين شيغو سيأو بين تاسي مركاسي وجو أقويا لو حدنا بين كالوسي سمية والله ولا لها يوحي سمينيان نتولى بينا كوكالا أو بينا مرخاتب بينا وحانو بينا هذا المحاضرة أن ميل كجيدي إيه انتو ترجبين إيه كرادين إيان إنا يراهان وحبو قرطي والله بشي أو كافي كليرو شقاء اسكول هاي تاسي محكمة لتجين حدا أو كمقان وهذا نلوغياري أو كافي كادينا إلى تجين مركا بين بيكون ديبتا وفجور بيكسي جلسا والفجور يهدي إلى النار بالنبي عليه السلام والعياذ بالله سادرتت بيتاسي مركاسي بين تاسي أين مرنا ببنانين إن تكون بين أبورته حتى قف كالا يقف منافقة يقف مبتدعة بلا آدن إلهي أبوري إن تكون بين أبورته السنة كوكو بنانا محادو مالين يسا قف شيخة أو أرض الشيخة جي أهاي ومعلن كاقا وشالي وحكو صوبري وسلانتي كوميري
بالله عليك أرنتاس سالس قبنيسا قضب كلاوادين ربعين كه الله ونرد كدكتو هنتي بين وقتك وشيء كران وأنا الشيء علمين كمنافق أفرط أو نبي الشيء كمتاهي النفاق العملي لكن وحى فول حما أو فول حما قدرة إنه قفك بين الشيء سأوبن يسوه وحنا الحقهين dadka uga dhaadhiciyo maankoodii maskaxdooda u xado waxaanan xaqiiqo inuu xaqiiqo ugu muujiyo wiilasha marka maalinta soo fadhiisanayay waxay ku dhaaranayaan iska daba dhaaranayaan inayna maxkamad masaajidka la aadaynin sheekhu maxkamad la aaday waxaana noo soo baxday inay iyagu iga horeeyeen anigu maxkamad masaajid ma geynin labada nin baan ka dacwiyey wixiina meesha ku qoran tahay say dadka hadalka ugu sheegayna ma aha wax yaa la weeyaan qoran ee wax afku laga sheegaya ma aha aan halka sheegayo waan haynaa waa la tusi kara qofkii raba ayagu inta ay rabeen oo markaas xagga ka gooyeen oo saan faylul musanay ba xutuseen laakiin arintu aan kaasma haddana maxkamadii bay aadeen oo iiga horeeyeenba wixiina waa la hayaa tawana la socota marka waxay noqonaysaa tii xadiiska uu sheegay runtii oo ahayd wal kadibu يهدي إلى الفجور بين تيبي حدنا بين كلا كوسي بنيسان يعني سيدي مركاسي أي دتك وقدر دعين لهاين دتك اللي يرتاكي وضيالك ضمركي باوح اللي قدر دعي إنه وحيالها سعي سدايهين منعها وحكالو أيضا مركا هبون إلا أقادو إنه مرنا باب بنانين مرنا ما إنا بنانين قرآنكuna si fiican uga hadlay maadaama quraanku yahay wax dadka loo soo dajiyay oo amali ah oo loogu talagalay dadkuna ku dhacaan ay ku dhaqmaan dadkuna ay iskugu eexan karaan jacayl is jecel yihiin iskuna colaysiin karaan iskuguna xadudbi karaan colaytan iyo nacayb is nacab yihiin quraanku marka arintaas uga hadlay u fiirsada waxaa la yaabaa quraanku inuu leeyahay qof gaalaho ku dilaya oo meeshaadii ka qaatay inaad ku xadgudubto waxaad xaq u lahayd mooyaane inaan ku banaanin munaafiqi mutadac ku banaanin ku muslim marka maxad malaynaysaa marka haddaad qof wax isku khilaaftaan aragtida ku kala duwanaataan isagu sidaa u arkaadna saad u aragto adigu inaad saxtaad isku aragto isaga naftiisu inuu saxtaay isku arko taasi marnaba kuma banaynayso inaad ku xadgudubto marna kuma banaynayso waa xaraan muqattaca bal fursada ilaahay quraankiisa wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala wala yajrimannakum shana'anu qawmin ayaysan idinku xambaarin oo idinku xambaarin duul nacaybkood cid aad nacaybkood nacabtihiin ala an la ta'dilu إن العدالة دعت كتكتان اعدلوا هو أقرب للتقوى والعدالة كل رقمة تاسها الله كبقى ودوي وحا قلد أدفع الحماء قفا مستويه سوقهي حتى دروست أنا سوى حاليرين إنه يراه الرجل إسكي علي أي الله كبقى مال سوقوي من ميدان وذات كمركي قرط الله جهلي أي حاجة أسمح كمان مساعد كل آدم والله وأهلين أدو فوله قفك مستويه سنك يقانا أم بنا ميزامي كرا تدكون أنتم من بدنا ويقانا آيات كلا لا يحكوا لي هاو السورة دا كجرتا ولا يجرمنكم شنآن قوم أي إنسان إذن كو حنبار قلنا عيب كوت أن صدوكم عن المسجد الحرام إن مساجد كألا إذن كهر جوك سيدين أوجد بل ورنا تقف ولدا قال مساجد كي إلهي وحرم كي كهر جوك سيدين وأصحابته حديبية لقهر جوك سيدين الله هالليا إيا لليه إن عيب كا نمان كاسي ما دام حرم كي إلهي إذن كعليين وإذن علي سنين هل كأي كجادي وإن الله هنا عابدان الحرم كي سكو عابدان إذن كهر جوك سيدين نعيب كأدو قبطاني ونسان إذن كو حبارين أيون سن إذن كو حبارين نعيب كاسي أن تعتدوا إن تحققوا بتاعنا بدل كذا وحلي وتعاونوا على البر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
isku kaalmaysta wanaaga alla ka baqa iyo bariga iyo khayrka iyo taqwada isku kaalmaysta ha isku kaalmaysanina ظلمك iyo xadgudubka iyo dambiga ila aakhir al-aayat culimadu waxay yiraahdeen labada aayad ka duulaya haddii balu fiirsato haddii alla leeyahay cid ilaahay dartii kula dagaalamaysa oo xaramkii ka celinaysa oo in la necbaaday alla loogu dhawaado haddana la leeyahay ku xadgudbin way ka sii xaq jirtaa inaad ku xadgudubto qof amarnaba ay ku banaanin inaad nacabto oo muuminka ah isaga way ka sii xaq jirtaaba isaga inaad necbaataba xitaa haddaad culaytabaan qofka muuminka inaad necbaato kuma banaanaba oo xitaa iyagoo dagaal iska weyn oo isdhameeyaa la leeyahay waa in taa'ifatan min al-mu'miniina iqtatalu laba qof oo muuminiin hadday isdilaan baa la leeyahay iimaankii baa labadaba loo sugaya marka way ka sii xaq jirtaa hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaanan sharciga ilaahay ku toosnayn caqliga nabad galana aanan sax ku ahayn dhaqanka fiican iyo tarbiyada iyo fitrada toosanna aanan marnaba sax ku ahayn inuu qofku guruub cajiibe qof ay isku dhaceen wuxuu isku fahmi waayeen inuu dhanka ugu dambeeyo halka ugu dambeeya u tigo waxba la harin oo waxba la harin qofka hadaad jeclaanaysana laguma talaxtigo bariicada waagu noqon karaa hadaad neceb tahayna laguma talaxtigo waxa laga yaabaa ilaahay qalbiyalka inuu isku soo dumo oo wuxuu la heshiisiyo maalintii heshiisku dhacay iyo walaalahay waxa ka iri war walaalayaalow waxba idalamaad harin dad aakhiriya adduunyo isku arki doona ana weligood isku arki doonin oo kala tad u dhaqanteen saasa marka awleeyay ina marnaba aan toosnayn waxa jira athar culimada ay yiraahdeen wuxuu mawquuf ku yahay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa hada al-ki Ali culimada waxay yiraahdeen waa xadiis oo nabiga ay u kor yeeleen oo xasan bay ka dhigeen asarkaasi wuxuu leeyahay ahbib habibaka hawna ma ka jeceshahay tartiib iyo wax si miisaanan u jeclow asa an yakuna baghidaka yawma ma waxa laga yaabaa inuu maalin cadowga noqdo وابغض بغيضك هونا ما كعدوغاغنا عدونما أن كنت لحتقين عليسو عسى أن يكون حبيبك يوما ما وحلقا يابا إنو مالن حبيبك أغا النقطة أرنتا سوى ميزان كشرعي أو شرعي هذه يجير وكسعود إنو قفكو ميزان إنو قفكو إنتو مساجد بان متلي الدين بان متلي إنتو صافر يسوى أنو خدمين يا أولاهم runtan ay taana ka khidmaysanaya awleeyahay cadayna la keeno burhaan ha keeno dadka lagu hadidayo dad kale maanta arkaysa waxba la isdhaafiyo keena oo adaba meeshii ku horta meesha ka fayd bal aragna inay wax ka qaldan yihiin annaga waxba noo muuqdan aragnay xogaal baan wahay meesha qodobka ugu dambeeyo aan ku dhimatirayo qawaacida kamidi waxa weeye oo nu jeedinaya dadka ummadda walaalahaya oo in badan waxaan ka filaynay aan kala kulmay inay ku dagtoomin qawaacida islaamka waxa kamida inuu qofka muslimkihi warka awna markaba dhigtaal u dhigan oo la cararin inuu wax iska miisaamo ku tiri ku taani inaad la cararin waxa suuqa yaala inaad ku cararin inaad xaqa iyo iimaankaaga iyo diintaada ilaashato إلهي القرآن آيات بدن بينكم تصالينيا إلهي وحده سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين dadka muuminiinta oo war hadii la idin keeno iska hubiya hadaad iska hubin weydaan talaabo qaadaan waxa laga yaabaa qof inaad xanato qalbigaaga wax kula galiso
xukun inaad riddo inaad dhan u janjeersato deetana hadhow aad ka naadamayso ood ka shalayso qisadan cajiibka dhacday waqtigii nabiga bal asxaabtii xitaa ka dhacday ka fikrad asxaabtii markay dad oo qolka islaamka ku cusbaa oo duulimaad loo diray bay tani ka dhacday marka taasoo kale xitaa quraanka aad akhrisanay ku taalaayeen kolkaad kuwan oo kala aragto waxa leeyahay waa wax dhici kara inaad tiraahdo way ayada ilaahay quraanka uu ku leeyahay ya ayuha alladina aamanu dadka iimaanka lahow idaa darabtum fi sabiilillahi markaad dhulka ilaahay ku safartaan fatabayanuu waxaad la kulantaan hala boodine ee aad maqashaane wax iska hubiya walaa taquluu liman alqaa ilaykum asalaama lasta mu'mina qofkii aad la kulantaan ee idin salaamana qofkani waa muslim ha odhaninoo ha dilina sheekada asagoo mas-uulkan ku fahmi doonaayo tabtaquuna carada alxayaati addunya idinka oo raadinaya dheef yaroo adduunyo idinkoo raadinaya fa cinda allahi magaanibu kathiira ilaahay agtiisa waxyaalo badan oo haniimo iyo khayr badan baa yaala mar labaad buu ilaahay soo celiyo wuxuu fatabayanuu arrintaa iska hubiya kadalika kuntum min qablu dadka hadda aad leedihiin noocaasay yihiin ka hor idinkuna ilaahun baa ina hanuuniyey saasaa ahaydeen kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum sidaasaad marka hore idinku haydeene fatabayanuu iska caddaysta ina allaha kaana bima tacmaluuna khabiira soo mas-uulku muxuu yahay nabigu asxaab buu diray wuxuu diray ilaalo inay gaaliya meelaha soo fiirfiiriyaan waxay soo mareen ragga iyagiihi nin ari la jooga xayn ariga wata arigii bay nimankii dabac ka galay markaasay yidhahdeen ariga ninkay ka qaataan bay ka kaxaystaan bay ka qaataan markay ninkii ku soo baxeenba ninkii waa salaamay assalaamu calaykum buu yidhi salaantuna waa astaanta islaamka waa ninku ma islaam ma muslim ba hadan muslim xoolihiisa ma la dhacaya xitaa waxaan meel soo soo dhigay ka gaalka xoolihiisa lama dhici karo xaq darro laguma qaadan karo inuu dagaalku gula jiro mooyaane shaki baa galay maxay isku qanciyeen waxay yiraahdeen salaantaani wuxuu inoo salaamay sa uu inooga badbaado oo xoolihiisa ku ilaashadeen nin muslim ma aha way dileen xoolina way qaateen aayada aad maqlaysaan ee canaanta inta la ku taalo iyo asxaabtii ku soo dashay ilaahay waxa kama qarsoomaan markaasi taa waxaan ka wadaa dhaarahan la dhaaranayo dad badan ay og yihiin wallahi inayna run ahayn iyo qaabka u socdaan iyo waxyaalaha ay qorteen waxyaalahaasi markaasi in laga digtoonaado oo lagu dagtoomin dadka ay dad sax yihiin qaacida islaamku waxay leedahay oo hadalkii Umar iyo kamid aha qofka walaalka dad isku afgaran weydaan aragtida sidoo uu arkay adu heli karto intaas oo waji oo dolan karto waa inuu sida u jeeda laga yaaba saas oo jeel lagu yaaba ay in badanna ay suurtagal tahay inay si qalad ay tahay maadaama aad u helayso waji sax oo ku toosin karto kala raacba leeyahay xumaanta maxaa ku raadiyay calool xumada intaan la eg xagee ka imatay cadowtinimada intaan la eg maxay ka imatay waxaan ma waxa Allah haydo adigu marka lagu yimid soo wixii maslaxada umadeeda Soomaa umaday in la yiraahdo war maxaani umad baa iska leeyahay ay umada tiraada annaga 10 kan bixinaye markaasi siday wax yihiin la hubiyo laakiin qof warkiisa la dhageysto iyo wadaad soo hadlay hadii aad ka hadashaan u dhawata waa dambaabeysan sida dadka marka ergagaxsan loo galiyay arrin sax ma aha umaday waxaan leenahay sida saxda ah hal raadiyo sidaan wax kuma hagaagaan marka kelimadaasi intaasaan hordhaca ayaan uga dhigayaa kelimadan insha Allah bari ayaanu bilaabi doonaa jawaabahan ka jawaabayno waxyaalaha soo kordhay beenta ah ee maasmeelaha ka socda dad badan ay ku kalsoomeen ilaahay waxaan ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala inuu sida xaq wana faajiyo ducadii nabiga ilaahay ka baryaynaa اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه إله حق حق نوتس نقول أرسقنا الراقن وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نقول أرسقنا حما وأرقنو أو كان نقول أرساق حماها سمك إن كل حنو ولا تجعله ملتبسا علينا مد اسكت ده حن ولا كل جرن وايو
xaq iyo baadilka saan harey kelima hore u soo sheegay cudur ummadda ku dhaca waxa ugu weyn xaq iyo baadilkoo la kala saari waayo ilaahay ba subxaana wa tacaala sawaabka aan weydiisanaynaa kelimadaana ilaahay wixii saxan ka nidhina ilaahay baa subxana wa tacala naga waafajiyey wixii kalena ilahay ba subxaana shaydaanka iyo ilaahay ka magan galaynaa ilahayna subxaana wa tacaala sida khayrka ay rajaynaynaa wanaag doon baanan nahay oon warkaa u samaynay wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu